dhegaystayaal aadan maxamed cabdille oo lagu naanaysi jiray aadan guray ayaa isna ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee sida dareentaabad kale gabowga kaga calaacalay gaar ahaan kolkii uu 80 gu tirsaday da'daas oo sidaad barnaamijyo hore ku maqasheen ay rag kalena ka calaacaleen hilaada 1830 ayuu ku dhashay deegaanka Ximanood waa dhulka ay ugu magaca dheer yihiin Ceesha iyo Laasaha Iidoole Docoley Godin Labe Gidleys Mareer Gur iyo meelaha u ogagale halkaas ayuu ku hana qaaday ku tabcaday ku gaboobay gadaalkiina ku geeriyooday gobolada dhexe iyo kuwa galbeedka ee ay Soomaalidu degmaysato markii la eegana wuxuu ahaa qarnigii 19aad iyo horaanta kii 20aadba gabyaati xiisa lagu halqabsado bulshaduna ay isu tabin jirtay waxa la wariyay raaga ogaas in kol loo mariyay gabay uu aadan tiriyo xarafka taada uu ka qaaday kaasoo uu aad ugu bogay markaas buu la yaabay ninka sidaas u gabiyo og sababtii uu markaas ka hor u maqli waayay Soomaalidii xoolo raacatada ahayd ee xilligiisii ayuu aadan guray ka mid ahaa iyaga ayuunbuuna la'aanshi ahaa lana dhaqan ahaa xilligaas isaga iyo raggii la'ayniga ahaa ay noolaayeen wuxuu ahaa xilli dhibaato iyo shiddo badan xilli lagu wada sugnaa colaad iyo cabsi joogto ah ragguna uu goor kastaba rikaabku joog wada ahaa nin adag mooye ma ahayn xilli uu qof waliba ka bixi karay wuxuu ahaa xoolaha xilli si baan loo kala qaadi jiray oo kii xoog iyo ciidan badani uu gar iyo xaqba u lahaa wuxuu ahaa xilli gardarrada xalaal laga dhigtay oo dad aan yarayn ay maanla'aan u go'een gulufyadii joogtada ahaana ay ku hanti beeleen wuxuu ahaa xilligii uu dagaalyahankii Soomaaliyeed inta faana yiri dayax 15 ama ku waday ama ka waday oo ula jeeday wallahi habeenka cadadu 15 ka tahay oo dayaxu dhulka eebba balaashay uu iftiinkiisa ku simo wallahi habeenka reer degan oo nabad u fadhiya culma hiigaana ku waday ama anigoo soo dhacay oo xoolahoodii soo mooro duugay soo laabad ahaa weerdaas ninkii yiri wuxuu ka mid ahaa kuman rag ah oo dhaca dadka kale meherad ka dhigtay xoogsi kalena aan aqoon jirin waxaa kumankaas isna ka mid ahaa dagaalyahan la oran jiray ilaa uga dhaga jarco gabyaagii colwadka badnaa ee ammaanduulayaashii qarnigii 19aad kuwii ugu magaca dheeraa ku jiray waxaa loo hayaa meelisi caan noqdayoo xilligiisii tilmaan cad u noqon kara maalin maalmaha ka mid ah ayaa niman ilaalaha oo uu dirsaday markay ku soo noqdeen waxay ugu warrameen reero geerashii ka bateen inay degaanka buurood isku ballaariyeen isla markaasna aan ciidan la sheegaa ku dayreen kolkaas buu culma hiigaana degdeg u qalqaalay isaga oo ciidanka duulinaya ayuu tiriyay gabay ay ka muuqato inuu isku haaraamayo nabadii uu muddada dheer u fadhiyay iyo siduu uga gaabiyay weeraradii ay noloshiisu weligeedba ku taagnayd afartii meelis ee tixdaa naga soo gaaray halqabsigana laga dhigtay ayuu ilaa ku yiri reerkayga waa uga dartaa daanya nabadeede dar allaan ku noolaan jiray iyo duulaan weeraro dugdugtaydu waa laba habaas kobay ka duushaaye haddii aan dunduba yurug harsado dacs ma jiifeen dabuubta oo kooban waxa uu xilligaasi ahaa ninkii kaliya iyo ooga adag leh xilli uu nolosha xaq u lahaa kii aan lahaynna markii la duulo xoolaha nugulka iyo maatada looga tegi jiray sidaasna uu ku sabooli jiray aadan guray wuxuu ahaa degaankaas iyo xilligaas adag nin ku noolaa oo weerar iyo duulaan aan damin u taagnaa wuxuu sidaas ahaadaba wuu gaboobay ileen xoogga iyo dhallinyaranimadu waa barwaaqo intii waqti aan la haysto ee aan lagu waarin wuxuu ku dhex gaboobay bulsho muruqa iyo waxtarka oogada la isku tixgelin jiray aan dan ka yeelan amaba aan waxtar badan u helin karin qof da'oobay oo in wax la taarta mooye aan isaga waxba ka soo noqonayn ma jirin hay-ado dawladeed oo sida dunida qaarkeed maanta ka jirta u xil qaba xanaanada aabbayaasha iyo hooyooyinka uu gabowgu soo rido iska daa xanaano iyo daryeele waxaaba la sheegaa jeer inay jirtay buur dheeroo bartamaha Soomaaliya ku taal taasoo laga tuuri jiray oday iyo habar kolba waayeelka inta aad u gabooba ay naftu dayn weydo si kastaba ha ahaatee aadan guray kolkii uu 80 jirsaday ayuu aad u jircay aadna u tabardareey haddana xoolo yari ayaa la soo daristay markii uu duulaanna ku tabcan waayey cid u naxaysaana ay ugu deeq weyday intaa waxaa ugu darmay wehelli'i markii ay xigtadiisii badiba uga guurtay oo webiyada koofureed ay xagga galbeedka uga tallowday wuxuu arkay dhaaxuun nin door ahaaye agihiisa dadkii dhoomnaan jiray oo ka jeestay rag oo idil buu wax tabantaabo u geysta ka waayey dumarkii uu qabayna wax ay taraan daaya haalaan aan kala go' lahayn baysad uga dhigeen wixii uu ka filaayey oo turiinsho ahaana kama u helin gabow cayrnimo wehel la'aan iyo cudur ayaa mar qura isugu ciidansaday
sidaa u dambaysay markuu arkayna wuxuu yeelay maansaruug isaga oo kale ah wixii laga filaayey. gabay dheer oo soomaalida taqaana ee jeceshahay ayuu markaa aadan mariyey, kaasoo si farshaxanimo ay ku idishahay uu ugu faahfaahiyey dhibaatooyinkii nolosha ee gabowga kala soo gudboonaaday. wuxuu ku bilaabay 7 miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarrada ceel marshay oo timaha deebeeyey, tin madow miyaan laga dayayn aniga tuurkayga. ma tilaabadan la qarqaroon tiigsin loga mooday, ma tukubay sida habartu kale tuugma ugu jeeda, bawdada miyaan tuujay iyo adhaxda tiirkeeda. intaa kolkuu da'diisa weyn iyo sida jirkiisu u dabacay ka yidhi ee uu tilmaamay tabaaraha xubin walba ka haysta, ayuu u soo dhacay gabowga iyo saboolnimada u heshiiyey wixii ay dhaxalsiiyeen iyo dandaradii ay badeen. wuxuu yidhi, tafmadow haddaan qaadan jiray mara tilmaan dheer leh, tartarrada malibir baan ku xiray taaka labadeeda, balkin luqunta kuma tiirso iyo tolano baarkiisee madhegtaan tagoogala gashaday sidii anoo tuuga. wax martiduu tamadisaa ninkay toos u hooyataaye tulugiis miyaan laygu arag, tuludii waa geele tuglo iyo gidhays baan ku qabay, dhiisha ii tolanee tuluqii miyaa iga ba'ay oo haraggu soo toomay. naaguhu ninkaan tuujinayn waa tim lahayaane taf miyaana rogahayn, siduu cudurku ii taabay nin tarrada ka jabay, waa bahdii wuxuu ku tiicaayay nimankii tol ii xigay miyaa webi taraaroobay. markaas buu isxusuustay oo tilmaan ka bixinayaa beriguu aadan ahaa sida ay arrimuhu ahaayeen, berigii dhallinyaranimada iyo taawada colaadeed ay ku dhammaayeen, berigii uu ahaa ammaanduulaha sheegan ee tala iyo tabarba uu lahaa, tiisana la wada raaci jiray. wuxuu yidhi, torogsa maalintaan fuuli jiray tahartu weynaatay, col tirtirihii anigaa lahaa tabaya duulaane, guuraha ana istaagi jiray idil tilmaanteede, haddaan weerarkeedii tognoon toon ka soo didinay, iba toosan leeyey haddayna hortaslaynaysay, tog biyale haddaan keennay oo koran ku taysiinay, tiicay wadaaggeed haddii rag isku tuurtuuro sidaan wax u tabayn jiray, miyaan taabi kari waaye, allahayow tahliishii janno yaan adiga kaa tuugay. ma wuu calaacal dhallinyaranimo soo celin, xoog galbaday iyo xoolo lumay ma wuu soo naqay? jawaabtu waa maya. taasna aadan isba waa ogaaye, nafta ayuu ku maaweelinayey, adkaysina uga doonayey. waana dantaas danta loo tiriyaa tixaha gabowga lagaga cawdo iyo guud ahaanba maansada qaybaheeda calaacalka ku saabsan. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.